barnaamijkii subaxnimo maanta waa khamiis taariikhduna waa 25 December sanadka 2025 qodobada barnaamijkan idinku soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona Iiraan oo la sheegay inay qabsatay mid kale oo kamid ah maraakiibta maraysay badda iyadoo waliba geysay dekadaheeda haddaba markabkaas ay qabatay shalay gelinkii dambe tafaasiisha ka soo baxday iyo waxa uu yahay barnaamijkan idinku soo gudbin doona Israa'iil oo wafdi u dirtay magaalada Qaahira ee dalka Masar talow maxay ka wada hadlayaan Israa'iil iyo Masaarida ergeyga Mareykanka u qaabilsan wada hadallada ninka la yiraahdo Witkoff oo sheegay xilliga Mareykanku ay doonayaan inuu bilowdo wajiga labaad ee wada hadallada iyo heshiiska Gaza xilli Israa'iil anika ay aad u diidan tahay shuruud adagna ay ku xirayso sida la leeyahay haddaba qodobadaas oo faahfaahsan ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo khamiisa ku soo gudbinayna inta aan ku jirno barnaamijka Mareykanku waxay doonayaan horaanta bisha soo socota ee Janaayo sanadka cusub 2026 in wada hadalladii Gaza wajigoodii labaad uu furmi doono saasuulay Mareykanku waxay doonayaan in wajiga labaad ee wada hadalladu ay markaa furmaan waqtigaas haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Witkoff waxa uu sheegay in ay bilaaban doonaan marxaladda labaad heshiiska Xamaas iyo Israa'iil in uu wajigiisa labaad uu bilaaban doono isagoo daboolka ka qaaday xilli Xamaas ay ka digayso xadgudubyada isdaba jooga Israa'iil ay ku hayso Gaza warbixintu way sii socotay warbaahinta Israa'iil ayaa saaka waxay sheegeen wajiga labaad ee wada hadallada heshiiskii Gaza in uu bilaaban doono horaanta bisha soo socota ee Janaayo sanadka cusub xilli Xamaasna ay mar walba ka digayso dhibaatooyinka iyo xadgudubyada heshiiska ay ku hayso Israa'iil hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay sheegtay in Israa'iil iyo Xamaas wada hadalladii xabad joojinta wajigoodii labaad dib loo bilaabi doono sida uu sheegay ninka la yiraahdo Witkoff waxaana la sheegay in wada hadalladaasi bilaabashadooda lagu iclaamin doono kulanka dhawaan dhexmari doona Netanyahu iyo waliba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dhanka kale waxaa la sheegayaa sida uu sheegay kanaalka la yiraahdo 13 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ergeyga la yiraahdo Witkoff oo ah ninka u qaabilsan madaxweyne Trump wada hadallada inuu gaarsiiyay mas'uuliyiinta Israa'iil ka hor kulanka la filayo Trump iyo Netanyahu inuu dhexmaro in ay Mareykanka ka go'an tahay marxaladda labaad inay bilaaban doonto bisha soo socota ee sanadka cusub marka ninkan wuxuu leeyahay wada hadallada iyo kulanka wax ha isku mashquulinina Netanyahu iyo ragiis kulanka Trump ha isku mashquulinina wada hadallada go'aan gaarnay Mareykan hadaan nahay bisha Janaayo wajiga labaad loo gudbayaa marka mas'uuliyiintaas uu la xiriiray uu u sheegay sida kanaalka 13 Israa'iil uu sheegay dhanka kale marka waxa leeyahay wada hadalladu bilaabashadooda Israa'iil waxay hor dhigaysaa shuruuda u taala haddaba shuruudu maxay tahay hal qof lafihiisa naga maqanay waa ninkii sargaalka booliiska waagii uu kii ugu dambeeyay lahay uu naga maqayay ninkaasna muqaawamadu say u raadinayeen ninka ma haynay dheheen annaga meeqaan laga mana 10,000 oo qof oo Falastiiniina guryaha ku dumeeyeen oo laaya oo aan la garanay marka intii macquulka ayadoo dalbateen waalidii keenay wixii noolaa wixii lafaa hal lafaa maqanay kaas ma loo xannibi karo marka ayagu waxay leeyihiin shuruudeena waa taas waxay doonayaan marka wada hadalka labaad inaan loo gudbin kaas oo ay arkaan inuu culays saarayo Israa'iil xadgudubyadan badan ay hadda wada iyo waxa kan ciidankeeda inay meesha ka baxayaan iyo howlo badan socda Israa'iil soo kale waxay ka shakisan tahay ciidanka imaan doona ee Gaza loo qorsheeyay hadiiba la helo sida ay suuragal ku noqon karto inay hubka ka dhigaan Xamaas iyadoo Xamaas arinta ay diidan tahay dawlado badanna ay diideen marka arrimahaas oo dhan ayaa jira laakiin waxay kala cadaan doonaan leeyahay kulanka dhexmari doona
Trump iyo Netanyahu maalmaha soo socda kulankaas ayay kala cadaan doontaan. markii warkaas uu soo baxay Israa'iil isla wafdiga u dirtay shalay gelinkii dambe ee aadaya maaratay Masar ayay wafdi u dirtay. masaariday waxay rabtaa inay kala hadasho ay tiraado arrinkan marxaladda labaad ee loo gudbayo Mareykan nagu adkaynayo la hadla annaga qof aan naga maqanay lafaha hal qof oo Hamas gacanteeda ku dhintaa naga maqan oo Gaza aaminsanay inuu ku xabaalan yahay ninka iyadoo naloo keen suuragal ma Masarey la hadal Mareykan dhahay Masar ayay waxay leeyihiin halka marka adika naga xigsada annaga shardigaas wadana macalinka weyn waa diidan wuxuu leeyahay waa loo gudbaa wajiga labaad marka sidee suuragal ku noqon kartaa Masar inay ka aqbasho tira waa la hakinaya ana Mareykan la hadlay sooti wasiirada arrimaha dibadda Qatar iyo Masar dhawaan ay soo saareen war ay lahaayeen maca Turkiga waa in loo gudbaa wajiga labaad ciidamo in la geeyaa marka arinkaasu waa arinkaas haddaysan jirin ay leeyihiin dadka wax falanqaynaya arin kale oo qarsoodi oo ka dhaxaysa Israa'iil iyo Masar laakiin taa suuragal ma aha Masar inay yeesho haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray kulamo ayaa ka socda magaalada Qaahira sida Al Jazeera ay qorayso xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wafdi dhinaca ammaanka ah oo kulamo ku leh magaalada Qaahira diray gelinkii dambe ee shalay oo Arbaca ahayd iyagoo diiradda ku saari doona kulankoodaas sidii loo soo celin lahaa lafaha nin maxbuus oo Israa'iili ah oo ay aaminsan yihiin inuu ku jiro Gaza haddaba bayaan la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in ninka la yiraahdo la raadinayo ay aaminsan tahay Israa'iil inuu halka ku aasan yahay oo Gaza ku aasan yahay haddaba saakay ayaa la sheegay inuu ku biiray wada hadallada isku dubaridaha arrimaha maxaabiista iyo dadka la laayahay ee Israa'iil General Gal Harris ninka la yiraahdo isaguna wuxuu u duulay magaalada Qaahira si uu arrinka u dardar geliyo oo arrinka looga hadlo way marka waa u jeedaa marka nimankaasu marka wada hadalladaasi hawshaas socota laakiin sheekada kale ee yaab kale waxa weeye Israa'iil maalin kasta way duqeynaysaa hadda maanta ugu dambeysay war soo dhacay oo wuxuu sheegayaa in Israa'iil duqeymo ay mar kale ka fulisay Gaza oo waliba dhowr meel ay ka samaysay sababta lama yaqaan way iska soo weerareen way duqeyneen Mareykankan wajiga labaad loo gudbaa leh kana loo gudbaa leh ha sheegin maba la hadlaayaba Hamas ay u qeelinayso ruuxa kan maxay yihiin warukaadiya wajiga labaad loo gudbi doonaa nimankan iyaga u bixi doona marka nimankan duqeynayska wada cid ay weydiinayaan ee wax maanta ugu dambeysay shalay way duqeynayaan maalin kasta way duqeynayaan marka warkaas isaguna warbaahinta qoraysa waxa leeyahay mar kale ayay xadgudubyo waaweyn ka sameysay Israa'iil Gaza ka sameysay maanta oo macnaha xabatoojintii ayay jabisay arrimaha Gaza inta ayaanu ku joojinaynaa qadar xayisiisa kadib waxaan idin hayaa sheeko kale oo cusub oo ku saabsan Iran oo markab kale qabsatay isla markaana dekadaheeda u ka haysatay haddaba markabka muxuu yahay muxuu siday yaas haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa Iran oo markab qabsatay maalmahan iskaadgaada jiray hoose markab u soo socday Iran Mareykan qabsaday waa idin sheegay Iran markab kale qabatay hadda markab kale la qabtay sheekadan marka waxa leeyahay waa bilowga dagaal la filan karo inuu dhaco sida la leeyahay meelu ka bilowdaba markaba la qabtay kana la qabtaa lagu hayaa markabkaas iyo waxaas iyo markabkan muxuu yahay haddaba shalay gelinkii dambe ayaa warku soo baxay in markabka ciidamada ay qabteen ilaalada kacaanka Iran ee dhinaca badda ayaa lagu qabtay waxa laga sugayay marka akhbaar dhinaca Iran marka warkii soo saareen haddaba marka aan idin tuso Iran waxay sheegtay inay qabsatay markab kuwa qaaba shidaalka ah wuxuuna siday shidaal la tahriibinayay oo macnaha la xadayay ayuu siday ayaa la leeyahay haddaba marka warbixinta way sii socotay waxa la leeyahay Iran waxay xaqiijisay inay qabatay markab kuwa shidaalka qaada ah oo marayay biyaha khaliijka Arbacadii waxayna sheegeen inuu waday 4 milyan oo litir
oo shidaal la tahriibinaya oo la xadayay ah ayay qabteen. wakaaladda wararka ee la yidhaahdo tasniim ee iiraan laga leeyahay ayaa waxay soo xigatay mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka iiraan oo xaqiijiyey in markaa markabkaasi la qabtay oo isla markaana looga shakiyey in uu waday waxyaabo lasoo xaday ama shidaal la xaday. haddaba waxaa la sheegayaa in shidaal fara badan uu waday, waxaana la socday 16 shaqaale ah kuwaasoo la sheegay dhammaantood inay wateen jinsiyado ajnabi inay wateen oo aanay ku jirin cid iiraaniyiin aanay ku jirin oo markaa ajnabi ay ahaayeen, inkastoo aan si rasmiya loo faahfaahinin dalalka ay u dhasheen ilaa iyo hadda. laakiin wakaaladda wararku waxay sheegaysaa markabkaa in loo kaxeeyey mid ka mida dekadaha waddankaas, iyadoo shidaalkii uu siday oo dhanna laga rogay oo halkaa looga gediyey sida la sheegayo. marka maraakiibtan shidaalka tahriibisa ayaa maaragtay meesha ku badan, marka mid walba maray qabanaysaa. qaar xataa waxaa ka mida la leeyahay iiraan gudaheeda in laga soo xadaa laga yaabaa, meelaha kale khaliijka laga xadayaa waa la yaabara sida shidaal loo xadaya, ceelasha shidaalka baa la jabsanayaa, waa waxbaa jira. laakiin inta badan shidaalkan la xadayo qolooyin shirkadaha oo macalinka weyn xiriir la leh ayaa inta badan jabsadaa leh oo xada shidaalka. marka iiraan marka way isku duubtay, kii horena weli inay sii daysay lama sheegin, wixii oo dhan marka way haysataa. wixii tafaasiil ay soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiinayaa. mar walba ku xirnaada barnaamijyadayda xaqiiqda ku salaysan, inagoo idiin soo gudbina mar walba macluumaadka iyo wararka aanu soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen. like gareeya oo sheer gareeya barnaamijka asxaabay, inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.